يا sheegayaan markay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM marayaan wadada dheer ee Maka al-Mukarrama ay rasaas ku ridaan dhammaan gawaarida iyo dadka kale ee wadadaasi maraya daba mar aan microphone-ka la dhaxmaray qaar kamid ah ganacsatada meheradaha ganacsiga kule wadadaasi ayaa iiga waramay waxa ay ka cabanayaan marka aan ka warano AMISOM markay soo marayso wadada bariyahan dama waxay bilaabeen argagax saameeya shacbiga ku ganacsada agagaaraha Maka al-Mukarrama iyo dadka maraba taasay ku kaliftay dadka halka wado la maray inay tahay meeshta wayna ku dhacda in macnaha marar badan ay ku sameeyaan dadka inay macnaha si kasta u dilaan ama baawuraha wadada walaado waxaan goobjoog ah laba caasilay inay ku dhimatay wadada Maka al-Mukarrama waxaan goobjoog ah khamiistii in gabar bas saaran tahay xabad gabarka loogu dhufto ay ku dhimatay waxa weeyaan waxaan u arkaynaa taas waxaan u arkaynaa in إزعاج بدن نسوق قبتي ودبابتي أرجع بدن نسوق ميل لما ركل أنا نجري وده وده كليه عن كأسنا الدولة ودوي جوا بدوي ميل بدن ما مريكرا أيضا ماذا ودوي مريكرا وحي مريكرا إيربور هيكرا ثلاثة من الحدود تيكرا إيربور وده لما ريله ده بدأ وده لما ريله ده أبسين وده لما ريله ده ودوي كنجور رجال أيضا ماذا نجور رجال شعب بيجي يباعوا شعب يخالف سجايا هيك أحسننا مقعي واحد لها يوسف محمد علي جدي dalkana hadee muddo ka maqnaa markaan ku soo noqdayna yani dalkaygi waxa uu soo noqday inuu dalkaygi yahay waxaan ogaaday inaan dal kale lahayn asagii markaan midna waxyaalo badan baan kala kulmay oo wadadan Maka al-Mukarrama aan ka arkay iyo ma aragtay dhacdaalka maal walba dhaca joog baan wahay halkaas aan ka daawanaya ugu horeyn waxa idin sheegayaa waxa la yiri waxaas day waxa ka sokeeya fiiri dibkii ugu dambeeyay ee Maka al-Mukarrama ka dhacay dariiqa ultima bala la yiraahdo gabar Soomaaliyeed ee halkaas ay ku dileen ciidamada UNISOM sabab AMISOM oo sabab la'aan ay u dileen gabadhaas anu waxaan ahaa dadkii gacanta qabtay xabadu markay ku dhacday markay dhimatayna gaari gacan ka saaray waxaan kala kulmay waxyaalo aan aad noloshayda ula yaabay sababtoo ah madaxweynihii waa la dhoofiyay waa maanta madaxweynaha la dhoofinayay waa tagi way soo noqdeen haddana ra'iisul wasaarihii bay qaadeen waa dhoofay waa tagi wadankii waa ka tagi waa nimankii dawladda sheeganayay nimankii dalkii hadday ka tageen shacabka maxay u leynayaan oo u baabi'inayaan oo xabadaha ula dhacayaan dhawaan ayay ahayd markii ay ciidamada midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho rasaaseeyeen gaari rakaab ah oo marayay wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku geeriyootay gabar kamid ah rakaabkii gaariga cabashada ka soo yeeraysa dadka ku ganacsada wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa mid ay kaga dalbanayaan dawladda federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya in ay wax ka qabato ciidamada nabad ilaalinta AMISOM markay isticmaalayaan wadada Maka